xisbiga wadani xaqarrimina in Somaliland ay hore u socoto xaqarrimina waxaan leeyahay dadka xariirta ah ee ku hareeraysan garoonka diyaaraduhu may sameyn waxa waa dad goba waa dad xariira waa dad dun leh laakiin waxay ahaayeen dadkii waxa sameynay ee garoonka hortiisa dhagaxa iyo rabshada ka sameynay dad basas lagu daabulay muwaadiniin siyaasi oo Somaliland xisbiga mucaaradka ee wadani kamid ah in lagu doodayo waa la xidho si sharci darraba loo xidho waxaan runtii aad iyo aad uga xumahay in goluhu duuban yahay xildhibaano ama garabyo isku sheegay isbahaysi waxa leeyahay hadday isbahaysi tihiin haddaad sheeganaysaan cududii goluhu inuu inii xidhnaado ilaa iyo imika bil iyo samtig waa ayaan darro ha ka sheeganina maqaaxiyaha waxay isbahaysi u noqoteen waa ina golaha timaadaan oo aynu golaha ku doodno oo golaha afkaartiisa ku kala badino guddidii imtixaanaadka qaranka oo maanta imtixaankii shahaadiga u qaybisay dhammaan Somaliland ardaydeedina ay galayaan waxay saaka la inoo sheegay inay nabad ku bilaabmay imtixaankaasu waxaan halkan dardaaran iyo mahadcelin uga dirayaa dhammaan ardayda iyo waalidka iyo macallimiintii runtii muddada dheer gacanta ku soo hayay ardayda waxaan leeyahay waalidka waa gudateen waajibkiinii waxay ardaydaas cagta saareen dariiqii koowaad insha Allah midhaha soo goyseen Allah ka yeelo kuwii dal iyo dad baan faca ardaydana waxaan leeyahay waa la idinku soo tabcay tacabkii la soo galiyay muujiya waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa macallimiintii iyo mas'uuliyiintii gacanta ku hayay ardayda dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare muddadii ay wax soo baranayeen ugu dhabar adeegay waqti kasta iyo waaye kasta soo maray waxaan runtii halkan si gaar ah uga bogaadinayaa macallimiinta xeebaha wax ku dhiga khaasatan magaalada Berbera oo waqtigan ku jirta waqti xagaaya oo aad u daran oo duruufta ugu dhabar adeegay inay soo saaraan ubixii wadanka waxaan leeyahay ilaahay ay ka jisaysiiyo sida qiimaha leh ee aad ubadkiina ugu dadaalisaan runtii inta wax ku dhaafayaa qodobkii taxamaadka hal qodob baan ka leeyahay golahayaga wakiilada golaha wakiiladu wuxuu kalfadhigu noo bilaabmay 4tii bishii lixaad waxaan jeedaa bishii shanaad runtii intii imka noo socday bishii lixaad cafwan bishii lixaad 4teedii noo bilaabmay intii kalfadhiga noo socday waxaanu fadhiisanay muddo kooban 4 kulan baanu fadhiisanay 4 fadhi waxaan runtii aad iyo aad uga xumahay in goluhu duuban yahay xildhibaano ama garabyo isku sheegay isbahaysi waxa leeyahay hadday isbahaysi tihiin haddaad sheeganaysaan cududii goluhu inuu inii xidhnaado ilaa iyo imika bil iyo samtig waa ayaan darro weyn oo qaranka u horseedaysaan waxaan leeyahay walaalayaal golaha waxa laynoogu doortay inaynu ummadda u shaqeyno golaha waxa yaalla xeerar dal iyo dad baa anfac u leh inaynu ka shaqeyno oo inaan golaha siyaasadayn ayaan runtii halkan uga soo jeedinayaa waxaan leeyahay haddii aad tihiin isbahaysi oo aad sheeganaysaan cududii ha ka sheeganina maqaaxiyaha waxay isbahaysi u noqoteen waa ina golaha timaadaan oo aynu golaha ku doodno oo golaha afkaartiisa ku kala badino marka waxaan leeyahay kaalaya kuraasta golaha ee bannaan soo buuxiya waxaana rajaynayaa inaad baaqayga ka soo jawaabi doontaan runtii waxaan ognahay in muddooyinkii u dambeeyay ama 4tii sano u dambeeyayba in mucaaradku ay ku celcelinayeen doorashada waxa dabada haya ama la meeraysanay madaxweynaha qaranka runtii waxaan leeyahay mujtamacana waxaan u sheegaynaa doorashadu inay u curduduuban tahay oo dabada ay hayaan xisbiga mucaaradka wadani waxaan taa u leeyahay maanta 6 bilood waxa la barayaa miisaaniyadda qaranka in la ansixiyo miisaaniyadda qaranka waxa ku jira lacagtii doorashada lagu qaban lahaa marar badan waxay ku soo celiyeen
madaxweynaha ayaan doorasho ogolayn inuu qabto maanta waxaan leenahay xisbiga mucaaradka wadani doorashada dalka laga qabto ma ogola waxaana daliil u ah inuu haysto miisaaniyaddii komishanka qaranku uu ku shaqayn lahaa haddii bisha 7 aakhirkeeda ay gaadhana waxa ay number 1 u yihiin in ay kordhin sameeyaan madaxweynaha in badan bay ayay yidhaahdeen madaxweynaha kordhin doonaya laakiin waxaan leenahay reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa oo cadeynaynaa in xisbiga wadani kordhin doonayo runtii waxa maalmahan aynu maqlaynay nin muwaadin aan siyaasi oo Soomaaliland xisbiga mucaaradka ee wadani ka mid ah in lagu doodayo waa la xidho si sharci darraba loo xidho qarankan cid kasto oo dambi ama ficilo kullida ka gasha qaranku il dheer buu leeyahay waxaan ognahay garoonkeena diyaaradaha waa muraayada Soomaaliland laga dhexdo wada arkayseen maalmihii dhow wixii ka dhacay waa la arkay waxaan leeyahay dadka xariirta ah ee ku hareeraysan garoonka diyaaraduhu may sameyn waa dad goba waa dad xariira waa dad dun leh laakiin waxay ahaayeen dadkii waxaa sameynayay ee garoonka hortiisa dhagaxa iyo rabshada ka sameynayay dad basas lagu daabulay waxaana number 1 u ah dadkii waxaa sameeyay ama hawshaas soo agaasimay xisbiga wadani waxaan leenahay xisbiga wadani xaqarrimina in Soomaaliland ay hore u socoto xaqarrimina ha ku noqonina istabtii Soomaaliland itraafkeeda hor joogsanaysay ayaantaa waxa garoonka ka dhoofiyay wafdi Mareykana waxa la tusayay dalku inaanu ahayn dal nabdoon ayaa la tusayay inaanu ahayn waxaan leenahay dalku waa dal nabdoon waa dal hore ugu socda inuu dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta iyo doorashooyinka ka hirgalaan sidoo kale waa qaranka ummadda reer Soomaaliland waxay u hanweyntay inay hesho ictiraaf caalami ah waxaan leeyahay ka qayb qaata horumarada socda ka qayb qaata ha ku noqonina lid iyo jaranjaro ka hor timaada in qaranku meel dheer gaadho waxaan ognahay shalay toole xildhibaano golaha wakiilada ka mid oo xagxaganayay mas'uul ka mid ah xukuumadda ina kaahin waa nin ku mudan halkiisa waxa weeyaan dadkii loo baahnaa maanta inaynu taalooyin u samayno waa dadkii loo baahnaa maanta inaynu xusno waan ka xumahay in ereya deelqaafa ereya aan ku mudnayn in saxaafadda loo soo mariyo waanan ku bogaadinayaa wasiirka arrimaha gudaha shaqooyinka amniga ee uu qaranka u hayo runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa aad iyo aad waxaan idinka mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh uga soo qayb qaateen baaqaygii aad iyo aad baa u salaamantiin assalaamu calaykum xildhibaan waxaad sheegtay golaha baarlamaanku inuu xidhan yahay isbahaysiga xildhibaanada mucaaradka adu waxaad tahay xildhibaanadii maxaafidka haddii meeshii la idinkaga adkaaday oo xildhibaanada mucaaradku kolla ay xidhayaan kolla ay furayaan golihii idinku maxaa idin tiraa bannaanka laguma kala adkaadee golaha lagu kala adkaadaa waxaa taa makhraati oo ah golaha ninka yimaadee ka doodunbaa inbaa qodhii golaha ah ninka bannaanka ka jooga qodha golaha maaha degmooyinka dadka degan maxamuud haybe aatiraafreer weeye iyo xisbiga mucaaradka ee wadani baa qasas ku daafay dadka deegaanadaasna taageerada ugu badan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kule marka dadka deegaankaas ma u dul xulaysaa oo hadallada aad leedahay xisbiga wadani ayaa soo dadkaasu ma isagaa sheegi meeshuu dadka ka keenay laakiin dadka halkaa degaa waa dad xariira xildhibaan su'aalka ina cumar dood dembiga oo galay lagu xidhay aad leedahay qaranka cidda dembiga gasho waa la xidhay muxuu yahay maxkamadda talaataa wixii lagu soo oogay halkaasaa ka arki doontaa